سؤال شهد وجوده بيسي محوية هاي MOU سملوه خصبين هاي أبس إنجليش أنا كشجع أمر كاره مركز كدي كلمة كوبان أضدك عن سوق فهم كرو أنت عن برامج كأنت عودنا سبعيننا محو تاج أنت هاي memorandum أود محو تاج أنت هاي off and يودنا understanding حلول كذا is أفجرت memorandum والدوكومنت وقرال أو رسمي أو لبرنا معركة وذا قرتين قيبت هذا السائل حواي إسفهم سانا ربنا إنا وذا شقينا أو كله قرال كاسي أصل أهان معني سلوح كوكوبية هاي وذا حاجود لبرنا لكن أنا هم بايندينج في رأي أصل أهان بايندينج وحلول جيدا حير أهان وما قبنا يصير هشيس أهان هشيس كحواي حقوق وواجبات وأبورايا حقوق وواجبات ما أبورايا أصل أهان ساسو أمرك الله في رأي MOU أما مو أو بحنا مو لن أسل كيسة وحواي إنه سن أبورين حقوق وواجبات لكن وذا شقين إسأفجرت وذا صعشة أرن إسلافيرين ساسو كلاوة gentleman understanding أنت سؤال or agreement محا كان مو كمان إسفهم كيلا جاري لو يكون إسرائيل كيلا صيحي هذا أمر سؤال إذا ما حقج دولة كينيا على واحد border كي واحد إسرائيل vertical line واحد إسرائيل لو يكون إشنتي دولة الصومالية وحالة الربيع مدة جوان أو ماي سجال كذا أو لو تكوني سجال إن أي حريصة دوكومنتي عدين أيو سودين تبدأ هذا يو أنت حفيز كمدني ودرته ديدلاين نوع سكر على سمية عالم كورن لو سمية هدي ميس كريسو وح إيمان كرو إن معركتي أرنت كوسابسن سودين تبدأ لو ريجي كرتو مارين هذا United Nation ka arrintan horta waxay ku timid asaaskeeda annagu joogna ayaa waxa loo yimid UN kana haysta walad Cabdalla iyo nin khabiir ah arrimaha badda wuxuu nagu yiri warnayo mala socotaan bisha May 12keeda in deadline uu jiro deadline kaas oo hadii inaan annaga codsan in naloo zaa'idiyo waxaan idhahan continental shelves baddeena ay u badan tahay inay la wareegto international seaboard qolada Somalia loo dhaafay doona 12 mayl inta kale tana la siin doono UN ka hay'adaas inta dawladda Soomaaliyeed ay dib uga socodsanayso application Kenya soo qortay baa eed jira oo ay sanadka 14 bisha labaad la eegi doono hadii la eego oo aan ka hor imaanin waxay tiri application kaasi uu soconaya baddisaasi ku tagaysaa intaas aan haystaan intaas ay qabsatay Kenya sheekh Banuumi madaxweyne saasa jirta wuxuu la kama hadli karaa hadda baarlamaanka ay qabsanaya baarlamaanka diiday qisaq jirta hore jirta warqadii hore ay saxeexaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo groupkii dawladda waqtigaas isfahamka ahayd waa lagu qabsaday marka badda hadda ma gali karo waa xogaa baan doodnay dadka say u arkaan horta warqadan waa warqada la isku haysto waxay ka kooban tahay ilaa 4 page waxay ka kooban tahay ilaa page ugu dambeeya oo saxiixayaasha ku qoran heshiis haddaad u fasirto dawladda Kenya heshiis ku fasiran iyaga laakiin is afgarad oo ah heshiis ma ahayn aniga wasiir baan ahay golo wasiiraan ka tirsanahay Prime Minister kiin hor fadhiyo Umar Cabdirashiid Cali Sharma Arke amarkiisaan ku saxiixanay heshiiska marka cawada asaga in hor taagan heshiiskaas wixii ku saabsan iyo waxa ka qabtiin waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha asaga ka jawaabi doona waana sintii salaam MOU ga marnaba ahayn badda bixiyay wuxuu ahaa inaan UN ka codsano in anaga dhulka lagu daro oo inaan iska hor istaagno Kenya waxay doonaysan tahay in ay khalado xuduudka badda sidoo yahay memorandum of understanding kii dhacday marka hore waxaan ku weydiiyay meeqa qof baa goob joog ahayd marka la saxiixay aniga iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya labadiina wasaaradda arrimaha dibadda ma ogeyd Soomaaliya ogeyd wasiirku full inform buu ahaa ma taas kaliya ma si fiican kugu sharxaa ma waxaan ogaay wasiirku inuu ogaay in kala daas wala rabo wax kale kama rabo ما يدا جوان كانوا جوان كابينتك هذا وزير كهذا أنا إنه فدي كابينت كم هو لكن جوان قالها وزير أنت فديستي كدوري جوان لقى جاري واي كبعد ما هنا لوج بما واحد أو أنت جوكت قالها الشيخ شريف أفكي سووا كشيء إنه سووا حبكوا وين كلنا سعونين وصن أرج هذه الشيخ شريف رموا شيء كفتار أنا قريبا أركن بقى وقال له صحيح أنا ما أركن ما له صحيح أنا ما أوي وإحنا كم أوي هذا في عنتها دتك عسكري هذا حماتنا هذا عسكري أنا وحنا لقيستي تازدم بعني ما أوي لكن مدحينها أي إنه أوجي أو كجوابان دقيست أنا. وحيري. ما إذا حتى كده يستعني أو دفاعي MOU أو ده هاي صح ولا MOU ما هذا. وحيري حلقة دور الشذا شيخ شريف وحيري أرنت صحيحتان كي مرنا فرنسا كي الأمريكان يسوماليا هذه عمر عبد الشهيد دراول كهذا أنا أقول ما أوجين وحركة ما أوجي بكيري.
madaxweynihii dalku hadduusan ogeyn adiga cumar cabdirashiidna aad ogtihiin iyo wasiirka arrimaha dibadda sheegaysa iyo safiirkii suurtagal ma tahay inuusan madaxweynuhu ogeyn adiga cumar cabdirashiidna aad ogeydeen ما يتصلت مدحونا ويدينيس لكن أنا كل شيء يعني ما أنا كويدين أنا قلها وزيرة there is no reason مدحونا ودن كوي هذا وحموكي مركز هذا حرب أنا إيش أكتب إنه أوجا أو حاضر أها إني أنا وشيء لا بس ما كارم أذيك عمر عبد الرشيد مدحونا هم أوجي سيسين إن أرنت صحيح حسن مسمينا أوجي سيسين أنا أود أمله إن إما يوحوا رفع هذا الشيء عن صحيح صح في حساب عسكري وزير كلمات دي بدأ إيو رئيس وزراء يس waxaan ku seexanay power of attorney oo warqad oo seexay amarkooda ah anigu xalada uu ogyahay aniga teedan u hadli karaa ya teedan u hadli karaa aniga madaxweynaha inuu ogyahay madaxweynaha ogyahay sheekh shariif wuxuu yiri waxba kama ogi aniga safiirka dadka kale intaan ka qarinay nala socda ila baarlamaanka ka cabsanaynay ayaan tagi oo maxaa u cabsanaysan baarlamaanka waa badii helin lahaay baarlamaanka mar dambe loo sheegay baarlamaanka markaa waa xaas niman dagaalamaya joogale oo qalad fahamsan oo la laga hadli karo badda hadii la soo hadal qaado baddaas waa la ictiraafay inay tagtay oo dood ma la geliyo dawladdeenu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidanayd in dib loo dhigo laakiin wax caddaynaayo dawladdeenu in ay diidanayd marna dawladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku rahdaa baarlamaankana lama wadaagin laakiin afkana looga sheegaa leeyahay anagu waa diidanayd waxaan islahay meeshaas warkaasi sax ma aan qabaanay haddii uu sax yahayna dawladdu waxay ku dhiiranayd dadaalkii ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto oo aan ahayn annaga saaraan niri annaga saaraan niri annaga saaraan niri aan ahayn waxaan rajaynaynaa oo niyad samid ay ku jirto waxay ahayd madaxweynuhu dadka inuu hor yimaado oo dadka u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadka hor yimid aan ka ahayn waraysigii dagaalkii Kenya oo Kenya dowladda Kenya iyo dalka Kenya dagaal lagu jiray aan u arkayna qadiyad dadka looga hadlayo aanan ahayn bad ku saabsan madaxweynaha uu keenay madaxweyne waxaan u wada library-ga wasaaradda arrimaha dibadda laakiin wuxuu yiri halkan horta aan dhigno bal dad baan adigu aakhirkii xasan sheekh mar saddexaadkii baan ku yiri muna sharmaani waa gabar meesha ka shaqeysa aan keeno saasaan muna ku keenay saasaan madaxweynaha ugu geeyay aniga muna markaa si fiican u qancinay aan ognahay in dawladda Kenya ay dhowr jeer dalbatay in dib loo dhigo oo laga aqbalay oo tan ugu dambeysay hadda ay qayb ka tahay maxkamaddu ka diiday maxay tahay sababta dawladda Kenya ay mar kasta u dalbanayso in dhageysiga dacwadda dib loo dhigo dawladda Kenya markiiba waxay la timid laba arrimood oo ah koow inaan maxkamadda adduunka ICJ aysan u lahayn xaq inay gasho dacwadan taasoo marka cadaynaysa inaysan marka hore diyaar u ahayn inay gasho ayadoo idana sabab ka sii dhiganaysa in isfahamkii heshiiska isfahamkii loo yaqaanay MOU Memorandum of Understanding uu yahay heshiis ogolaanaya wada hadal in wax lagu dhamayn karo marka maxkamadda aysan boos uga banaanayn haddaba Kenya mar walba waxay jeclayd ama door bidaysay inay maxkamadda banaankeeda dacwada lagu dhameeyo ama wax loo yaqaano out of court settlement taas oo iyadu door bidaysay inay ama tabar ahaan ama dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaanba ay u sahlan tahay inay go'aanka iyo waxay jeceshahay ka gaarto marka mar walba iyadoo diyaar uma ahayd inay maxkamadda gasho sidaa daraaddeed mar walba waxay isku dayaysay in si kastoo dib loogu dhigi karo ama loogaba maxaan ku rahdaa totally maxkamadda looga boodi lahaa sababta dhowr arrimood baan isleeyahay waxay u preference ay u jeceshahay in out of court settlement ama maxkamadda banaankeeda lagu dhameeyo waa koo waxay leedahay dib u dhigaas haddii dib u dhac uu sii socdo in ayadoo siday jeceshahay ama cid ku raacda ama la ogolaata ama dawladdeena ha noqoto ama cid kaloo siyaasad ahaan la ogolaata in lagu dhameeyo maxkamadda banaankeeda waa inay waqtigu soo baxaa waayo waqtiga they are buying the time waqtiga ayay rabaan in walba kaga faa'iidaystaan dib u dhacaas in fursaddu ama isbedesho kow waxaa soo bixi karta barzambi in la yidhaahdo qaab kaloo ama sida isugu dayaba ama African Union iyo IGAD iyo in hab kale lagu dhameeyo isleedahay arma Soomaalida lagu khasbaa in maxkamadda banaankeeda wax lagu dhameeyo midda saddexaad waxay isleedahay arma international pressure iyo cadaadisyo kale oo siyaasadeed dawladda la saaraa kaasoo iyadan ku khasba dawladdu inay ka tanaasusho maxkamadda in go'aankeeda lagu gaaro waayo mar walba ma dareensana haddii maxkamadda go'aan caadi lagu qaadaysa cadaaladda ah inay guul ka gaari karto kayskan haddii aan isaaf garanno Soomaaliya weli u leedahay inay dacwadii la soo noqoto The door is open. We can still agree on this, and if we do, Somalia has the right to withdraw its case and tell the court that we've resolved our issues with our friends Kenya. But if we fail, then the court will give its verdict. haddii aan isaaf garannana dacwada Soomaaliya way la soo noqonay haddii soodintaasi ee dawladdaasi ay ku qabsan karto dawladda Kenya waxay u diyaarisay is-afgarad oo ah memorandum of understanding oo hadda halkan ku qoran waxa ku qoran this memorandum of understanding shall enter into force upon its signature meeshaas waa meesha ku andacoonaysa maxkamadda dhageysanaysay waxay leeyihiin is-afgarad ma ahayn heshiis uu ahaa heshiiska saan kuu sheegay is-afgarad labay kala yihiin heshiis waa contract heshiis waxa waaye
ani adiga waxaan ku heshiinaynaa qalinkan adiga inaad iga gadato $100 waa qalin qaali ah marka $100 ay siinaysaa adiga waxaad kugu waajibaya $100 inaad siiso ana waxa igu waajibaya qalinka inaan ku siiyo waajib iyo xuquuqa abuurantay heshiis mixniisa saas waa inuu abuuro is afgarad waajib xuquuq ma abuura waa wada hadal oo aan kala gato qalinka exactly waxaan ugu heshiiyey wada hadal in qalinka la kala gato oo kaliya waa la isku afgartay laakiin laguma heshiin qalinka in la kala gato وعدها سما سيدتك ugu saalnaato marka afgaradkii saas ahaa Kenya waxay dhahday maya ma ahan afgarad kaliya wuxuu ahaa heshiis oo ah hadii soohdintaasi khilaaf uu ka yimaado anaga dhexdeena inaan wada hadli karno oo aan xalin karno khilaafaadkeena oo meel kale aan loo gudbi karin ilaa xalinta khilaafaadkaasi ay soo xirmaan is afgaradkana waxa uu dhaqan galaya marka la saxiixo marka saxiixaasi ma loo baahnaa mise looma baahneen asal ahaanba memorandum of understanding صحيح ما لو باه اصل ahaan hadii la saxiixay xitaa binding ma noqonaya asal ahaan xitaa binding ma noqonaya laakiin kalimaadka meesha lagu qoray ayaa kalimaad culus way go'aanka marka la gaaro marka intuu qaadan doono ma sheegi karo mana saadaalin karo inuu bil qaadan karo inuu laba bil qaadan karo laakiin waxaan filayaa hawsha ugu badan waxay bilaabanaysaa markaas oo hadda xitaa waxaan dhageysanayaa maandhow haweeneyda hadda loo magacaabay maxkamadda Cabdiqaawi Dr. Cabdiqaawi bedeshay waxay sheegaysaa in maxaan ku raadaa ay sanooyin qaadanayso sidii settlementiga sidii loo gaar lahaa heshiis wixii lagu heshiiyey iyo furinteeda maxaan ku raaddaa xogtaan u dhundaloola waxay sheegayaan kiiskan inuu strong yahay xoog leeyahay waxaan rajeynaa ku guuleysan doono balse midda kaliya aan isleeyahay aan rabana hoosta ka xaqiiqa waxay tahay surprise hadda maanta shirka dacwada reportka igad iyo markay gashay waxaana filayso kama soo bixino Djibouti inay tiraado dhinaca kale naga marto waxaan rajeynayaa inaysan soo bixin wax surprise waa insha Allah aan ku guuleysanayno laakiin haddii la yiraahdo waxa loo gooyay iyo wax loo cadgooyay meeshan waxa laga farsameeyay wax farsamo iman karta taasna de waxaan dhan qiyaas kara ma laakiin waxaan jeclahay inaan guusha ugu weyn insha Allah Hassan wuxuu iibsaday ama gacantiisa ka baxday kilinka shanaad dhulka la dhaho Ethiopia Cabdirashiid Sarmarki oo bahwadaag lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hadda madaxweyne ahna علشان مدحوين اسكو شرحاي شيخ شريف لبدوا saddexdaas ragna waxay faraha ka daayeen badda Soomaaliya oo maanta Kenya ay ku xifaaltamayso Cabdirashiid Sarmarki oo badda intuu lacagta seetahay uga gatay iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay inta soo fariistaan meel anaga hanolo codeeyo madaxweyne Soomaaliyeed rabnaa afka idin gooxsho darana Soomaalida bismillaah war assalaamu calaykum war maxaa umada u dhiibato aad taariikh xuma ka ahayn war Sheekh Shariif laftirkiisa waxba ka ogyahay arintan والله بالله تالله إنه وحكي أوجع أرنتان قف وحبك أوجع ما جرتو أنت حكومة ده سكوت جرتو مع الوزير كأريمها الدبدة مع الوزير كأريمها جذا أنا جا هيستوري أو حن أن كديوان جليني وأنا نو قرنت هاي ولا شيخ شريف كصبلاو عبد الرشيد شرماكو حجي عبد الرحمن